waan islaam asxaabay ku soo dhawaada barnaamijkeena ka hadlano sida ugu fudud ee loo jabsan karayo Facebooka imika aad bay u hawl yaraatay si Facebook loo jabsanayo waa si yar fudud weeye Twitter baa jira Facebook si online loogu jabsanayo ma soo dhawaad garaysanaysid virus waxa kama qaadaysid waxa weeye si yar fudud baa loo jabsan karayaa waxa lahaa Facebook password hacker.com intaad ku qoraysaa markaa automatic ku soo baxaya markaa saabay marka waxa sameynaysaa sibta koowaad Facebook iyo qofka aad doonaysid baad jibinaysaa ama jabsato okay marka Facebook baad raadinaysaa marka asxaabay Facebook baad raadinaysaa markii hore aad doonaysay inaad jibisa doonaysay dabadna inta yar sare kambar ku jabinayna gabadha inta halka ayaad copy garanaysaa domainkeeda ayaad copy garanaysaa copy baad oranaysaa marka intaas kaliya aad qaadanaysaa bas intaas ma ku filan saxaabay marka waa halkii la tagaysaa marka aad waxa haystay baad halka la tagaysaa sorry waxaan ku jabinay kale halka baad la tagaysaa marka halkaas aad bast garanaysaa marka saxaabay marka automatically wuxuu ku soo diray code ku soo diray email-kaaga email-kii baad gelinaysaa email-kii code ku soo diro halkaas code-ka marka sid gelinaysaa halkaas aad marka password-ka iyo email-kaba kadib ku soo diray marka code ku soo diro marka bal hadda aynu bilowna hadda marka star ma muuqato khataar culus star baa marka ku dhufanaysaa marka wadaya sawirkeedii aan arkinay imka gabadha sawirkeedii waaba ka wada arkitaan waa ka dib sawirkeedii ma aragtaan asxaabay marka faajimu bilaabaya marka asxaabay 72 maraya percentage wadaya saddex qaybood maraya waa faajin margin iyo connection saddexdaas istabaad maraya waqti badan iyo khadka cusub qaadanaya marka istabaa kale ku xiga iyo sida loo dhameystirayo hakiisa dhameystiran khadka aad culus ma dhaqaaqayaga asxaabay marka ayaan in soo gudbin doonaa casharka dambe hadii la ka dhigo intan haynu sii joogo assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh wixii komana wixii like iyo wixii iyo subscribe ka fadlan haylaawin hana la bakhaylin assalaamu calaykum